My brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I wanna report to you a khissa, a very painful khissa on one side, and on the other side it is very, very interesting. It should be having an impact on you, this khissa, if you listen from the beginning to the end. This khissa, actually, it has happened to one of young man. This man used to abuse Allah subhanahu wa ta'ala. He used to abuse our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. He used to abuse the religion. He says the religion is not authentic. Some ulama went to him to give him a piece of advice. After they gave him the advice, they told him, please come with tawbah. The tawbah is open. The door of Allah subhanahu wa ta'ala is open. Allah is mercy. What you said is kufr. You abused Allah subhanahu wa ta'ala. You abused our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. You abused the religion. So you have still a chance to surrender Allah subhanahu wa ta'ala. You still have time to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. But the young man could not listen. He has energy. Allah has given him energy. Allah has given him healthy to say whatever he wants. But the ulama who went him could not succeeded in their advice. He could not have taken their advice. What happened? This is what happened. This is what happened. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Intaas hordhacay ahayd. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan ka hadla qisa run ahaantii cajiib ah. Qisadan waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah, Ilaahay caafimaad iskugu daray, iyo xoolo wax ka maqan uusan jirin, dhibaato uusan qabin. Wuxuu bilaabay walaalayaal kibir iyo isla weynin iyo isqaadqaad ayuu bilaabay. Wuxuu bilaabay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dhiirado. Wuxuu bilaabay inuu nebiga wax ka sheego. Wuxuu bilaabay diinta inuu wax ka sheego. Wuxuu dhihi jiray Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu cayn jiray. Subxaanallahi malikul qudus. Allahu akbar. Wuxuu cayn jiray rasuulka. Diinta ayuu wax ka sheegi jiray. Wuxuu dhihi jiray xaq ma aha diintan. Saasoo dhihi jiray. Xaq ma aha diintan oo dhihi jiray. Culama ayaa u tagtay oo waxay dhaheen inuu bal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabab nooga dhiga ayaa laga yaabaa oo waanadeena qaata. way waaniyeen. wamaa calaynaa ila albalaaqu lmubiin. anaga gaarsiinu baa ayaana lagu leeyahay. way u tageen, waxay dhaheen warniyow Ilaahay u toobadkeen, Ilaahay ka cabsi. kufri waa waxaad ku hadlaysid, Ilaahay u soo laabo. hadalkii wuxuu ka sii qaaday inuu dida. kibir ayuu usii ziyaadiyey hadalkii. wuxuu yidhi Ilaahaygiini waxaas ha lagu sameeya. wax afka aan qabanayni waa sheekh. wax afka qabanay maaha. wax Ilaahaygiini waxaas ha lagu sameeya. diinta waxaas ha lagu sameeya. culamadii marka waxay dhaheen aan ka baxna meeshaan balaayaa ka soo socota. ninkan balaayadiis yaa nagu dhicina. aan ka carray meeshaan. bil kama soo wareeganin.
gaarigiisa isagoo wata maalin maalmaha ka mid ah iska raaxaysan iska barwaaqaysan qoslaaya damaashaadaya ayuu shil galay kadibna ilaahay wax weynba kuma sameynina dhabarka ayaa laf dhabarka ku taala ayaa laga jibiyey bas. shalay wuu socday caafimaad uu qabay wuu boodayay wuu hadlayay maanta ma socon kara gurigaa la keenay xanuunkii ayaa kusii darsaday waa la qaaday Yurub ayaa la geeyey cusbitaal weyn oo khatar ah oo daawooyinkiisa isku dheelitiran yahay loo raadiyaa la yidhi Yurub ayaa la geeyey Yurub markii la geeyey daawooyin ayaa laga soo siiyey Yurub waa la keenay wuu soo laabtay laakiin waxaa la keenay isagoo gacmaha aan qaadi karayn lugahan sida oo kaleeta aan qaadi karayn la keenay oo paralysis culamadii way u tageen mar labaad u fiirsi weli jaanisa u furan uu ku toobadkeen waxay dhaheen niyow ilaahay u toobadkeen jaanisa wiilaha haystaa waa nooshahay naftaa kugu jirta ilaahay u toobadkeen in allaha yaghfiru dhunuba jamiica ilaahay dunuubta oo dhan wuu dhaafaya mar kale ayuu ilaahay cay haddana u fiirsi ilaahay markuu rabo inuu meel markii ilaahay uu ku wato meel dadka uma ekin dadka waa ka duwan tahay culamadii waxay dhaheen kan rajo ma qaba balaayadiis iyo nagu daaranayna naga kaxeeya waa laga carrina waa laga tagay waa laga quustay waxaa dhacday ikhwaani fillah xanuunkii inuu kusii darsado maalin maalmaha ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday isagoo fadhiya ileen lama qaadi kara gacmihii iyo lugihii waa kuwan saana u yaalaan oo waa nin la qaada marna xaggaa loo qaadaa marna xaggaa loo qaadaa saana u fadhiya markuu fadhiya bis labadii bari uu ku fadhiyey ayuu ilaahay wuxuu ka soo saaray nabaro waaweyn oo intaan leeg nabaro waaweynaa laga soo saaray subxaana allah qudus calool ayaa loo jiifiyey lug caafimaad uma qabta gacan caafimaad uma qabta baradii uu ku fadhiyey caafimaad uma qabta ma fadhiisan kara halka jid kaliya u furan waa in calool loo seexiyey isagoo calool u jiifa wasaqda ka baxaysa qarmuunka jirkiisa ka baxaya subax kasta waxaa u imaada nin takhtar ah oo sifeeya ilaan habeenkii markuu seexda waxa agagaarkaas oo dhan oo bahalo ah ayaa kusoo aruuraya jirkiisa wuxuu noqday daldaloole waaweyn intaan la eg oo wixii xayawaan ah iyo barambara jiir wixii meelahaas ka ag dhawaa oo dhan ayaa guri ka dhigtay jirkiisa meeshay habeenkii kusoo xaroodaan habeenkii waa la cunaa wuxuu arkay subaxii waa la cunay isaga habeenkii subaxii wuxuu arkay meeshaan oo la goostay subxaan allah takhtar ayaa subax kasta u yimaada wuu buufiyaa wasaqdii iyo malaxdii iyo wixii xayawaankii xalay meesha ku bari oo dhan ayaa laga soo sifeynay isagoo sidaas xaaladaas ku sugan ayaa culamadii mar saddexaad ay hadan u yimaadeen si bal ay u waaniyaan
muxuu daawanayaa saasana u jiifaa filnu daawanayaa filna u daaran saanu leeyahy filinkii lagama bedel kara filinki wax yar haddii laga qaado wuu qaylin saana u jiifaa marka filinka markuu dhamaado wuxuu leeyahy ii bedela filinka waa iga dhamaaday filinka ii soo celi haddana mar labaad subxaan illahi malik lqudus waa laga kala cararay dadka o dhan walaalihiis xataa way ka carareen hooyadiis basaa kusoo hartay gabadha xataa guriga ka shaqeynaysa jaariyad ahayd way ka carartay waxay dhahdeen meeshaan qarmuun waay meeshaan ma wajoogi kara dhahdeen lacag doonta waa lagu siinaa ma rabeeda lacag caafimaadkayga halis ku jiray dhahdeen lacag wax maanta ay itaraysa ma laha caafimaadkaygaba haddii uu dhib soo gaaro lacag maxay itaraysaa tiri meeshaan meel aan ka shaqeyn kar maayo lacag kasta gabadhaas way diiday bal fiir walaaleel hooyadiis basaa ku hartay qofkii u yimaado wuxuu dhihi jiray walaal hal asxaan ma ii samayn kartaa maxaa waay asxaankaas walaal idil nafta iga qaad dhibaatadan aan ku jiro ayaa waxay ii dhaantaa inaan dhinta ee idiloo dhihi jiray isagoo sidaas ah oo xaaladaas ku jiro ayay geerida u imaaday ayuu ku dhintay walaalayaal adduunyo silacaas ayuu maray tii aaqarana way u dhiman tahay ikhwaani fillah waa qiso run ahaantii murugo badan waa qiso run ahaantii cajiib ah qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhiiranayo markii wax loo sheegana isla weyn haddana aan qaadanayn oo kibir ma ogi inay u ziyaadisa wax kala aan u ziyaadinayn maanta qof markaa dhahday ilaahay ka cabsi waxaan iska dhaaf markaa dhahday arrintaa waa laga fiican markaa dhahday bedelka xataa yuusan sameynin haddii uu ku dhah waayo walaal waa mahadsan tahay intaas ka dhaxa kuu filan laakiin qofkii wuu kula coleytamayaa wuu kula qaylin wuxuu ku leeyahay ma anaan ilaahay ka cabsin jirin ma aniga maxay ay tahay aada iwaaninaysaa adiga maxaa tahay sidaada banaan ilaahay ka cabsi haddii lagu dhaha iska qaada qof kaa naxa ayaa ilaahay ka cabsi ku dhaha ilaahay qabashadiisa way daran tahay wiilkan u fiirsay in allaha la yumli adaalim xataa idaa akhadahu lam yuflitu ilaahay qofka daalimku u kaadiyaa laakiin maalinku uu qabta kama fakanay ikhwaani fillah ilaahay waa kaas uu qabtay allah subxaanahu wa tacaala ha ina xifdi meel walba aan joogno may allah subxaanahu wa tacaala may allah subxaanahu wa tacaala protection be upon all of us until we meet next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.